taageerayaasha isbedel doonka xisbiga mucaaradka ee wadani ee magaala madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo ayaa cududooda taageere ay u hayaan musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo ku-xigeenkiisa maanta ku soo bandhigay magaalada Ceerigaabo waxaana taageerayaashanu isaga kala yimi xaafadaha magaalada Ceerigaabo isla markaasina ruuxaya calanka muuqa dheer ee xisbigaasi ku caanka yahay ay isugu soo biyo shubteen beerta xurriyadda ee magaalada Ceerigaabo waxaana halkaasi taageerayaasha kala hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed حسن دادي قدومية قديدة كامبين كحسبي محمد محمود عود يوم مسؤولين تهير قرني حسبي وداني قربتشوق يحمنا كلا وتربدان قولكم بنكون فرحسنا هاي سيدا قيمها بدن أماني والبوسو أم ببحثو بنام بحدان سيدا قيمها بدن يا أدماني والبا غير كل مياه رحدة وقتش بيسان غير كل مياه ماني والبا ويسي شي غيان ماني والبا ويسي ضعيفيان غير ودننا ماني والبا ويسو كريان ويبان والبعيد كوديا وداي موجinayaan aad baa ugu mahadsantii dadku waa aqoonyahan waxay garanayaan waxa u dantaa taas ayaa keentay inay maanta iyo maalin walba ay soo baxaan xisbiga wadani ay muujiyaan taageeradooda iyo cududooda gobolada kale waxaanu leenahay sida aanu u cadeynay inaanu anagu taageeradii gobolka Sanaag haysanno idinkuna u cadeeya waxaanu doonaynaa inta tartanku socdoba in la kala haro oo ay baydhaan dadkii kulmiye ololeynayay iyo kuwii rashada ka qabiibay hadda 15 kun baa la shaqaaleynaya wadani waad maqashay waa la socotaan qalin jabiyaani shaqadoodii waa u diyaar waa loo diyaariyaa nin waliba meeshuu ku fiican yahay iyo fakultadu ka soo baxay ayaa lagu fariisinayaa kursiga suuqa lagu sii dayn maayo taariikh damena ma jiro kuwa kan idinla waxbaanu nahay maxay qabteen ديبو حسابتما waxaan kaga baxayaa midnimadeenu waa mid bedelu reer Sanaag oo midaysan oo gacanta is haysta oo diyaar u ah isbedelka xisbiga wadani wado inay la mid noqdaan waxaynu doonaynaa walaalayaal isbedel daba oo aan been ahayn kulmiyana wuxuu aaminsan yahayba inaanay waxba inaga maqnayn xisbiga wadani waxa isaga muhiimadiisu ay tahay oo ku xarnan siyaasadiisa inuu gobolada isgaarsiiyo gobolada uu ku taamayo inuu horumariyana waxa ugu horeeya gobolka Sanaag shalay halkan dad baa ka hadlayay ceelafay maqaar baa ka hadlay waa ka murar dilaacayna wadani ku soo biiro aad bay imaagayeen anuu kuwa u jawaabi maayo sababtoo ah markaan kulmiye halka joogi jiray fagaaray taagnaayeen may hadli jirin iyagu saameeyna kuma lahayn marka ka u jawaabi maayo waa loo soo laabay waxay ku meeraysanayaan inay intay guriye rinji mariyaan yiraahdaan waa lagu soo degarabtay cid la yaqaanana ma hayaan bedelo Sanaaga noolaa tooyadana waxaanu leenahay qoladan Ceergaabo u soo dirtay ee tiri beenta ku celceliya Ceergaabo qaadan mayso war miyuu been qaadanayna kulmiye walaalaynaya waa nima Sanaag cadowgooda waa Sanaag cadowgiisa waa cadowga Sanaag haddaanu reer Sanaag nahay afar beelood bay noo qaybiyeen ma nihin beel kaliya aynu nahay reer Sanaag baa la yiraahdaa xisbiga wadani dadka shacabku sida awrka cirka uga muuqdo ayaa calanka wadani ay uga dhex muuqataa arrimahaas oo isbedel oo xalaal baynu rabnaa shacabweynaha reer Soomaaliland ku boorinaya in maanta codkan uu mid noqdo oo aynu farta saaro wadani aynu ku dooranaysan xisbiga wadani diyaarna u yihiin inay soo saaraan soo sida maaha wadani waa haystaa dadkii waa haystaa waad ogtihiin iyagaan waxba hayn iyagaa kaararka iibsanaya iyagaa idin kaararkaan iibsano bedelu cararu baxsadu waa kuwa lascaanood ka soo baxsaday bedelu cararu baxsadu dhacu Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceerigaabo